wardegdeg ah dagaal culus oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa ka soconaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gaar ahaan xaafadda Buulabacaad kaas oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed daba waxaan kula wadaagi doonaa dagaalkan ilaa hadda markaasi ka soconaya magaalada Gaalkacyo gaar ahaan xaafadda Buulabacaad khasaaraha rasmiga ah ee laga diiwaan geliyay sidoo kale maamulada Puntland iyo soo kale Galmudug waxa ay ka yiraahdeen dagaalkaas soo dhaw muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhigo waa hagaag xilli muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ay ka taagneed xiisad colaadeed oo u dhaxaysay ciidamo sheegtay inay ka tirsan yihiin safka federaalka iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland taasoo keentay in lagu soo afjaro ciidankii PSF ee ku sugnaa xiradii ku taalay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa markale magaalada Gaalkacyo ka taagneed xiisad kale oo hor leh oo u dhaxaysay ciidamo beeleed ku sugnaa gudaha magaalada Gaalkacyo walow markii dambe maamulka Puntland uu ku guuleystay xal u helista ciidamadaasi oo ay markaasi noqdeen ugu dambeyn ciidan la qarameeyay oo ku biiray ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland kadib markii maamulka Puntland uu soo afjaray ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa gudaha Gaalkacyo waxaa markale magaalada Gaalkacyo ay ka wada arrimiyaan labada maamul ee Galmudug iyo sidoo kale Puntland maanta ka qarxay dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed kaas oo ilaa hadda ka soconay xaafadda Buulabacaad ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug dagaalka ayaa ilaa hadda xogaha aan soo gaaray waxa ay tilmaamayaan in uu sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed labada maleeshiya beeleed ayaana adeegsanaya awood kasta oo ciidan iyo sidoo kale hub kasta oo ay heli karaan waxaana labada dhinac ay isku adeegsanayaan hub aad u culus sida xogaha ay tilmaamayaan dagaalkan ayaa ilaa hadda labada maamul ee ka wada arrimiya magaalada Gaalkacyo ee Galmudug iyo sidoo kale Puntland aysan wax warah ka soo saarin waxaana lagu tilmaamay taasi inay tahay mid fursad u siinaysa labada maleeshiya beeleed inay waqti dheer ay markaasi dagaalamaan maamulka Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyay xoogga saarayay in magaalada Gaalkacyo ay noqoto magaalo ka cagan ciidanka safka federaalka sheegtay si gaar ah qaybta ay Puntland ka arrimiso waxa hadda magaalada Gaalkacyo ay marti gelinaysaa dagaal beeleed kaas oo suuragal ka dhigaya in magaalada markale ay dib ugu laabato halkii ay ka timid 10 sano ka hor kaas oo ahaa in magaalada tan iyo 2019 ay ahayd magaalo colaadeed oo wixii taasi ka dambeeyay ay noqotay magaalo xasilooni amni iyo sidoo kale horumar markaasi ku tilaabsanaysay laakiin dagaal beeleedkan hadda ka soo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo ay dad badan ku tilmaameen inuu caqabad ku noqon karo horumarka amniga iyo sidoo kale xasiloonidii magaalada Gaalkacyo ay 10 sano ugu dambeeyay ay ku naaloonaysay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa muddo dheer waxa ay markaasi ahayd ama xudun u ahayd dagaal beeleedyo soo noqnoqday kuwaas oo galaaftay nolosha boqolaal qof oo shacab iyo sidoo kale dhinacyadii dagaalamayay inta badan dagaaladii ka dhici jiray magaalada Gaalkacyo ayaa waxay ahaayeen kuwo si toos ah iyo si dadbanba ugu dhaxeeyay maamulada Galmudug iyo sidoo kale Puntland maadaama inta badan ay dagaalami jireen maleeshiyaad ka soo kala jeeda labada maamul ee Puntland iyo sidoo kale Galmudug